waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay gudaha magaalada Boorama ka socday shir ay wada lahaayeen beesha degta waqooyiga magaalada Hargeysa iyo beesha degta waqooyiga iyo galbeedka gudaha magaaladani Boorama iyo guud ahaanba gobolkani Awdal. Muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn loogu dhagtaagay warmurtiyeedka ka soo bixi doona waxa ay ku heshiiyeen labadaasi beelood ayaa maanta waxa ka soo baxay afar qodob ay soo bandhigeen labada dhinacba inay raali ku yihiin garadka kala duwan ee iyagu waqooyiga iyo galbeedka magaaladani Boorama degan ee iyagu casuumada u fidiyay dhigooga waqooyiga magaalada Hargeysa ee dhaqanka ayaa hadalka ku hormaray waxa ayna yiraahdeen waxay naga go'aana hadaynu weynahay iyo hadii aynu yarnahay beesha Jibriyoonis waxa inta ay ku hadlaysay mustaqbalkeega wuxuu waa siyaasaduna mustaqbal bay leedahay midow bay leedahay wax bari la isku ogaaday leedahay wax meel la isla dhigay leedahay waxaan u sheegaynaa mutacallimiinta waxaan u sheegaynaa haweenka waxaan u sheegaynaa indheer garatada waxaan u sheegaynaa cid kasta oo codku ay khusayso inaan haddaan duqaydii Jibriyoonis nahay meel u dhignay xuquuqdooda wixii ay ku lahaan lahaayeen dawladda dhalan doonta ee Muuse Biixi Cabdi uu musharaxa ka yahay ayaa ummadda Soomaaliland meel kasta oo joogaan xisbiyada iyo ummadda waxaan farayaa in nabadgelyada la ilaaliyo. beeshi Jibriyoonis oo tiri waxaan go'aansanay inaan ku biirno xisbul xaakimka maanta talada u hiigsanaya hadii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka dawladda soo socota ee hogaamiyaan Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Saylici waxaan taageersanahay aan sii xoojinaya Suldaan Cabdi Daahir Gaboobe hadalkiisii uu yiri baanaan sii xoojinaya. Wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mowqifka guud beesha Jibriyoonis iyo beelaha Subeera wal ay ku heshiiyeen odayaasha dhaqanka oo soo gaarsiiyeen nabad halkaan ay ku waarayso siyaasiyiin baana kala jiidaysa inkastoo maanta ay xusn u socdeen oo wixii aan ku heshiinay haddana odayaashu dhabarka kullay ku ilaaliyo weeyaan iyagana u taagan sida horta taa ula socdaan taasi waa taa tii kale ee hoosaaneedna iyo xusbay u socdeenna oo isku afgaranay inuu dadku inaan u footayno waan isku afgaranay. sidaas oo kale dhaqanka waqooyiga magaalada Hargeysa ayaa iyaguna goobtaasi hadallo kala duwan iskaga daba qaatay oo uu hogaaminayo Suldaan Xasan waxa ayna yiraahdeen iyo Jibriyoonis oo maanta gogosha leh oo gogoshay noo dhigay waa filayni waa maqnayn ergaanu ahayn erga culus baanu ahayn miisaanle baanu ahayn labeentii awal baanu ahayn waxaanu u soconay ee aanu reer walba ka codsanaynay maanta musharax la hubo oo go'aan qaadasho leh ayaanu ka iibinaynaa Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye. xaajada Jibriyoonis waa xaajo uguba ma xaajo curada hore u soo jirtay. Jibriyoonis wuxuu gartay war walaalaheen waa kuwa halka socda abtiyaasheen awowyaasheen oo deeni walaalaheen aynu wax wada lahayn war bal aynu ugogolno oo aynu u yeedhno oo walaalaheen wixii ay xumadu u haysay farta aynu ka saarno oo ah codkii iyo cududii reerka waa idinka mahad celinayna Soomaaliland kamay dhicban aamisanahay guul buu inoogu dhamaaday war wuxuu inoogu dhamaaday isafkarad buu ku dhamaaday 48 saacadood ee ugu dambeeyay shirku socday waxa halkaasi ka dhacay go'aan geesinimo la ka dhacay oo heshiis taariikhi ah ka dhacay. Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in Soomaaliland dhismaun ay u fadhiyeen beelaha Jibriyoonis iyo beelaha Subeera wal sidii loo dhisi lahaa qarankan oo loo sii dhiirigelin lahaa. goobta shirku ka dhacay waa goobtii barakaysteeda Sheekh Cali Jawhar وهالكي لغو دhisay dawladii adkayd ee qaranka salka u dhigtay ee uu hogaamiyaha ka ahaa loo naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal madaxweyne xigeenkana ka ahaa Cabdiraxmaan oo Cali Faarax mujaahidku bariyahanba waanu wareegayni dadkan wax weydiinayni warna doortaanu lahayn oo aan wax wada doonanaanu lahayn waxa mahadda dheeraadka leh beelaha Jibriyoonis ee annagoo iska maqan oo bari ku maqan fariinta nooga soo diray Boorama ee lahaa noo kaale
hargeysa nooga soo dira noo diyaar garoobay ee nagaga hor yimi koraya cawliya aageeda ee nagu soo dhaweeyay sida sharafta lena noo casumay mar iyo laba iyo saddexba subeera wal bariga dhaweedanu bariga jiray yaa beesha saacad muusaan daba joogni anagu ciise muuse oo sidiina yaa wax u tabaynadii haddana iyagaanu la mid ahayno aanu de wax la lahayn amaka waxbaynu wada leenahay walaalayaal waxbaynu wada leenahay waxbaynu wada qaadanay ilaahay haynala qabto waxaanu idinla qaadanay arrinkaa keentan baanu idinla qaadanay sariyo hoosba waanu idinla qaadanay walaalnimadaas waanu idinla qaadanay xisbigaa kulmiyaanu idinla qaadanay musharaxa inaynu wada dooranaa baanu idinla qaadanay ilaahay baa mahad leh ugu dambayna goobtaasi waxaa laga akhriyay warmutiyeedkii iyo qodobadii ay ku heshiiyeen labadaasi beelood oo hore siyaasadii madaxweyne xaaji maxamed ibraahim cigaal iyo cabdiraxmaan aw cali faarax iyo daahir riyaale kaahin iyo axmed yuusuf yaasiin waa siday hadalka u dhigeen ay bahwadaa ku ahaayeen siyaasadda somalilan beesha jibriil yuunis xisbiga kulmiye hiil iyo hooba la garab istaato codkana u hurto waxaa kaloo si buuxda loogu heshiiyey in si buuxda loo uga wada shaqayno midnimada iyo qarannimada somalilan iyo adkaynta nabadkooda noolaanshaha bulshadeenna 3 in lagu midoobo hiigsiga fog iyo ka dhow kor loogu qaadayo hamiga lagu horumarinayo dadkeenna gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka waxaynu maanta iskugu nimidnaa cashada aqalka aad u socotaan taalaan dhadhamadeeda naqaanaaye taasaan doonaynaa anagu taasaan hiigsanaynaa dhadhamadaan garanaynaa bariiska sacad muuse ma cunini ciise muuse naleer cuni jiray waxaan se garanaynaa anagu casho wasiir iyo casho caaqil ma cunini ta aqalka madaxtooyada taalaan garanaynaa waa taan idinka sugaynaa jawaabteedii